wiilkii fur baan ku iri dhowr jeer baan ku iri fur wadiiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta igaga xidhan halkan waan idin salaamo dhammaantiin waay kan waxaan idinka maqnaadaba haddana soo dhacay waan idin xiisay dhammaan waxaa tihiin asxaaban xiisay dadka qaar baa waxay ku leeyihiin waxay xageed ka dhacday shayaadiintii bishii Ramadaan xidhxidhibad ku jirtay bishii Ramadaan soo gasho lagu maarag meelaad ka dhacday warmaya kumaan jirine kolley waa Ramadaan waqtigu iska adkaanaya sidii hore maaha afur samee waa hawshu ka bedelan tahay markaas awgeed baan idinkaga maqnaa wax kale idinkama maqnayn mar labaad iyo mar saddexaad baa idin salaamay soo dhawaada waan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada haddii habeen idin tahayna habeen wanaagsan hadday maalin idin tahay maalin wanaagsan kolley anigu xilligu idin soo gaari doono fiidiyoogu moogi laakiin xilliga aan duubayaa waa subax weeyaan soo habeen aniga laftirkeyga markaa garanay xilligaan duubaya okay intaa haddaynu kaftan kaga soo gudubno dhammaantiin waa idin xiisa allah idin sharfo dad loo xiiso dadka ugu wanaagsan baati dad loo xiiso dadka ugu sharafta badan baati dad loo xiiso dadka mudan baati maadaama saas oo dhan idinku soo xiisay subscribe ta lagu dadaalo maadaama nin badan YouTube ka maqnaa fiidiyooga like-sa waxay sii faafisa share gareeya qof walba meesha yareed ku leedahay share gareeya intaa ka soo sugo intaa marka laga imaado maanta waxaan idin wadaa waxa weyn barnaamij weyn idin ma wado wax kale idin ma wado waxaan idin wadaa maadaama muddo badan idinka maqnaa ma jeclaysanna hadalkeeda ku sii badiyo ma jeclaysanna nin badan idin sii hor fadhiyo kale waxyaabo badan oo dambe weyn oo dambeeyaan waan wada joognaa Ramadaantii baxaysa ciidkii baa soo galaya komison ciid mubaarak ilaahay ha inaga yeelo kuwii bisha barakaysan khayrkeeda hela bashbashkeedii barwaaqadeeda hela nabadna ku gaadha ciidana si wanaagsan u wada ciiday insha Allah biidnillaahi kariim waa tahay maanta qiso yar oo kooban baan idin wadaa hawa koobnaatee qisadu waxay xambaarsan tahay farriin bay xambaarsan tahay waa qiso inaan ku dhacday qisadan farriin weyn bay sidaa maadaama imika waqtigan jooga uu yahay waqti ilaahay inaga shartiray marka qisadan inanba ku dhacday balse laakiin inta waxay noola soo wadaagtay farriinahan u soo gudbiso waayahay qisadan inta ii soo gudbisay كل مقعد اللي دين لو ذاق مايو أو مقعد اللي نمسو ذاقين أنا جوا دبنا هاي المقعد المهم هاي اللي جوا ذاقو إن المسج كاتان بفيعن وعاد إن وقت هاي أنسك جود قالوا إن هذا الكتاب بسيط لريا مربو إن قصدنا وحتى إن بحتري ويل بنس قبني مدو إسقبني إحنا نسكم معنا عندنا هذا ويل كي خلافات كذي بتي يعني خلاف قيس باسون لحكلي ولا خلاف قبتي واحد تروح عند معي إن نسكفر عند معي ويلكي فرباكور دور شير بنقول يفر مركا عن فرتان كي كواي ده سكست سمي أو يفرواي نسكجت كبير مركا نسكجت يعني مقالة دي أنشوي وانكتي ودن كلام تدي ودنكي كلام مركان تدي إنكي محيها تولي واحد عضي دي عرضي يعيلكي يونينكي وحيابي يعني نلحم مري أو دي خلافها أو دي مسكحي وقانوي دي هذا وحيابها هاس أيان إسحين كروابيتر إنا بانسبرني إنك مركز برنا وقت وين سعني وبا شعيل بانسولي حكالي وما شيء بيتر مركاين كإن لا يقبو وحنوصل شيء إن ليسوق بشري ولا يسوق فريت مركا كدب إنكي ونسكور سني بعدين مركا إنكي إسكور سني واحد علي ده كل جور كاس من نقنا يوه جور ده جور كان عادي الله اسمه صح أنا ملاني يا واحد شراء حياة من حد لا بشراء oo de la yiraahdo dadku inta meel ka tagaan meel isku guursadaan kulay kastoona waxa sax ahayn oo de ma oran karno oo meher caadi horto afaraha gelmayna afaraha cilmadu yaalaan nagnooma yaalaan laakiin in adigu way isguursadeen adigu guuraan reerkooda ogeyn qofna intoodii la qabo nin kale reerku kuma darayaan wax kasta haday dhacaan marka adigu wax laga yaabaa guur qarsoodiya uun buu ahaa
adu markaa inankii waxay tiri waan isguursanay inankii markaan isguursanay waqti isqabnay inankii kalean isqabnay aduu dee aan waqti badan isqabnay inankii kalean isqabnay baan usoo sheegay inaanan guursaday adduunka wax ka xanuun badan gabadha haddii aad qabto la yidhi ninba guursaday wax ka xanuun badan horse ma jirto inankii markaan sheego waxay tiri arrintii faamilkii gaadhay fadeexaddii cirkaa isku shareertay dee ilaahayna dembi baad aan ka galay maxay ahayd hoolay dee adduun iyo aakhiratoona waxa maan dhiganin adoo fadeexad in labada dhinacba la igu gubo in la itakooray in aduu dee iska garanaysaa faamil la yidhi deynantiinaba waxaa samaysay maxay ahayd hoolay adu waxay tiri haatan isla hadda wax kasta uun kusoo gudbay xaaladda aan ku suganahay aad ba u adagta yacni xaalad aada u adag oo ka qoomameyn leh oo dhibaato leh oo qalbi gubasho leh oo waxay tiri dee takoor leh oo labada dhanba aan ka dareemiyo kulayl ayaan ku jiraa way tiri marka kolley dee inantu may waayin oo maanta dee xaaladdu innaga nama taagnaa awal hore qisooyinkeenan soo gudbin jirnay waxay ahayd ila tali iyo inaad fikirkaa ka dhiibato iyo saad waxu aragto inaad ula taliso dee qofku tala kaa qaato tale inaga doonaya bay ahaan jirtay laakiin maanta tan tala maaha laynaga doonaya inaga ee keliya waxa laynoogu soo gudbiyey message ahaan yacni inaan gabadh kale oo ade waxaasi ka suurtoobi karaan oo dee yacni ku fikirtaa inaanay sameynin oo aan xagga ilaahayna aan dee maxaa tolay u roonayn oo dee ilaahayna aad dembi ka gelayso maanta qof la qabo oo meher ku xidhan yahay qof kala guursaday dee waa dembi saaid weyn weeyaan marka inaan maxaa ahayd tolay qofkaas in message ahaan u qaato in u qaadana mooyaane inoogumay soo gudbinin maxay tolay inay tiraahdo ila taliya waayo dee arrintaasi iyadiyo faamilka u taal iyadiyo ilaahayba u taala oo dee ma aha wax innaga maanta dee faraheena ku jira ama aynu wax tala kala qaadan karno laakiin inaga waxaynu ka caawin karna waa duco oo bil rabadaan u duceeye in ilaahay dembigeeda dhaafo adna waxaan ku leenahay walaalo ilaahay waa qafuur raxiim naxariis badan yahay toobaduna way furan tahay ilaahay u toobad keen ilaahay toobadaha ka aqbalo ilaahay dembigaaga ka dhaafo ilaahay wixii aad ku waana qaadato ha ka yeelo maxay ahayd hore dadkeena waxay naqaanaa qofka hadduu qalad galo in la caayo laakiin waa loo duceeyaa inaynu ducayno aynu nidhaahno ilaahay kusoo hadeeyo haddii ilaahay kusoo hadeeyana ilaahay dembigaaga ha dhaafo insha allahu biidnillahi karim waa qof muslina intaa kasoo sokow inaguna waxaan rajaynaynaa inayn message-kaa wax ku qaadasho shaydaanku hadduu ina qaato isku dayda kulle waa shaydaan baa dadkeena watee shaydaan baa laynagu lamaanaysiiye wax kastaaba way dhici karaan qoraalka allana waa halkiise in aan maxay toolay aad soo xasuusato mar walba ilaahay sharaftaada faamilkaaga intaba waxweeyaan waa wax dhaawacaya aakhiradaada adduunkaaga sharaftaada faamilkaaga intaba dhaawacaysaa marka ilaahay ha inaga dhigo kuwii asturnaada ilaahay ha inaga dhigo kuwii maxay ahayd toolay adduun iyo aakhiraba liibaana kuwii jannada ku kulma ilaahay kuwii bisha rabadaan laga aqbalo acmaashay sameynayeen ilaahay ha inaga dhigo ilaahay intii hallowsanna ha soo hadeeyo meel lagu kulmana jannada ugu wanaagsan ilaahay jannada ha inaga kulan siiyo dhammaantiin asxaabtada qaaliga waxaan leeyahay videoga haddii idin soo gaadhay subscribe iyo share iyo commentiga wixii fikirkaaga commentiga soo dhiibo tan iyo intaan ku kulmi doono video dambe video badan oo dambe weynoo hadhsiin waxyaabo badan oo dambana aan idin soo wadaa tan iyo intaan ku kulmi doono video xiga waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waan idin jeclahay I love you